السلام الله عليكم. السلام الله عليكم. وإذن سلام أبوغي علي تورير. سلام الله كوكتال مين علمي. سلام الله عليك. زهرة ورسمة دور مقع لغا مسكين ما همالنا مولا أوهاي واكو سلام هبو. زهرة عثمان سيدو كالي habaryar ayeeyo labaad aarano ayey saddexaad eedo abooto abuulan macooyo waxaan idin ahay salaan allah idinku taal 19 dasfar ku jiro wax iga yaabiyey alla Soomaaliye wallaahi oo billaahi oo tallaahi inayna dambi igu ahayn haddaan idin dhaho 72 laba farqo adduunka laga keenaa 70 farqo Soomaaliya laga abuuraya subhanaka ya cadiim. I understand inuu qalad dhaco. What I don't understand is waxa uga daba qaldamayno. waxaad aragtaan video gabar la dilay la isugu tagay awradeedii banaanka taalo war idinkii islaamka sheeganayo risqiini ilaahay xangileeyo youtubero you think you doing a good service? You haven't seen anything cadaab weli maydan arkin markaasaad adinkoo youtube horta maama Soomaali ani ma aqaan leydle wax ka qaldan ma aqaan maama Soomaali wax ka qaldan ma aqaan weligay Allahay ma arkin qof islaan ah oo intuu meel soo fariisto dhahaya hal faatixada hal igu maro reerka inuu ilaahay maqrab iyo maqshid geeyo. Isn't it enough already inay fadhiixeen? Isn't it enough inaa la wadwado yani war hee dhahay ani ma waa la mas'aadana laga heesa kaalay islaamnimada ani kaligii ma ugu hartay hello maqal iyo aragba ma jira war idinka risqa ay garid ina 10,000 iyo bakhti iyo balaayo raadinaysiin iyo quote unquote subscribe and thumbs up, but in the meantime what are you guys doing? qofka islaamka waa loo duceeyaa qofka markuu rafaad ku jiro war bal fiiri gabadha qaldantay ayadii iyo gabadhiyo meel xun isla fadhiyaanay aqligeedii waxay u dirtay nin wigari adiga islaamka ah ee youtuberka ah ama facebookerka ah yaa ku baneeyay inaad fadeexadii wadwado diinta islaamka horta habaartaba waa galaas aniga reebon dheer la iska ahani jireera iska ah kunta kinta adeerka dhageyso ani ilma bini Haashim mi iyo dhageysta war jireer dhashay waxaan ahay waliba Afrika ka timido sankeeda waxaan ku dhahay 2 qof laga kirayn karo. Listen ilma laan dheer ilma qof ay listen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma faataxaad waxaad u maraysaa sug ilaahay baad waxaad ka baryaysaa reer inuu rogo
because gabar bay dileen. adiga aadana ma ahano. yaa kuu baneeyay inaa qof habaartid, cadaabtid, ciqaabtid, like awoodee youtuberaa tahay. You are part of basharkaasad ku dhex jirtaa. habartaas qaldantay adaa hadda ka daran ee dhahaya weliba meesha kusoo qoraya faataxada hala ii maro ilaahay inuu reerkaa rogo ka dhigta pointers. habartan maama soomaali la dhaha iyada naftirkeeda wallaahi bilaa ma aqaano. waryaa ilmo laan dheera habartan quraan saara bahashee soo wadaa oo aan dhar wadin. labadii afrika isku disha caqli xumo way dhacday. adi maxaa la habaaramayaa la yiri ilaahay midda kale sug reerkii markay rogmadaan haddana hadhow qaaraanka dhinac ka bixinaya maxaa qaldan. maskaxdiina sida u shaqaysaa rabaa aninaan fahmo. war shimbiraha walaashooda waa ku salaamay iyo the rest of the world. Listen to me my darling 42 people meesha ku jira intaan arkayo intaanan arkaynin. war yuusuf maxamed cabdulla in adeerow adiga waa qoslaysaa ani waa yaabana ani waxaa isdhooyaa kaalay islaamnimadii ina abubakar gacale. what the hell happened to Somali people? maxaa ku dhac? war annaga 2021 aan joognaa dadka maarsi aadooyaan wanaaga laga shaqeynoyaa pollutionka la yareynoyaa bushkuleetiya la wadooyaa baabuurtiya waxaa la dhahoyaa ciddii 6 baabuur qabta 2 baabuur soo reebo niyo adduunka ilmahay dhalaan ilmahay sii dhalaan caafimaad si ugu noolaadaan. idinkana hadda saaka subaxi markaas soo kacaani fiidki markaas saaxda ma isjecel saqbarkii halkaa idin soo fariisana. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahu risaqayga meel waasa oo xalaal soo dhig rabbiyo. waa idin baryaa do not thumbs up, don't follow me and don't subscribe and don't share it in YouTube. rabbi iyo rasuul faataxa fajaq anaa hadda idin maraayo. waryaha asxaan suubiya. islaamka aa sheeganayso macnaheeda ma aan dhar la gashanayo laga baxayo. islaamka aa sheeganayso oo salaada aad tukanayso wuxuu ilaahay ku yiri salaada haddayan kaa reebin xumaha masmuux ma aha ilaahay kaama aqbalayo. macnaheedu maxay tahay? xan iyo xasaro iyo isku dir iyo rufyaannimo iyo habaar all those things waxay soo gelaysaa waxyaabaha aan salaadaada dhejinaynin. yaa rabbi yaa rasuulullah yaa rabbi yaa rasuulullah yaa rabbi yaa rasuulullah yaa mu'miniin rajab iyo shacbaan bilaha aan muslimka tihiin 9kii habeeno halka maalinoo 2 sano dembigiina la tira ilaahay wuu ku ogyahay calooshaas kugu sameeyey. maama soomaaliya habeenaad yuhuud aado iyo habeenaad tiraahdo saaka shaah ma cabin shaahigaaga intaad cabto ood meesha soo saarato shaydaana kuu dida shaahiga. maama soomaaliya xadkaadii waa soo dhaafaysaa. lately islaam waxaad ahaan jirta dadka waanisa. islaam waxaa ahaan jirta akhlaaqda looga dayda. islaam waxaa ahaan jirta ayaantan dhinaca u badatay siday wax kaa yihiin aanu garan maayo. maama soomaaliya tiro ka labo waay shalana waa kuusoo gala maantana waa kuusoo galoya. maama soomaaliya faataxada loo sugo. faataxada waa dadkay dejisaa. faataxada qur-aanka laga bilaabay. faataxada qur-aanka lagu qatimay. micnay leedahay faataxada waad salaada taa ku tukato. micnay leedahay faataxada. faataxada dadka looguma maro ilaahay inuu halaago. ilaahayna kaama dhegaysanayo. ilaahay xumaan shaqo kuma lahan. ilaahay habaar shaqo kuma lahan. ilaahay caay shaqo kuma lahan. ilaahay halaag shaqo kuma lahan. listen to me and listen to me carefully gabare. islaam fiicanaad tahay. aayaadka ilaahay ha ku qabtaano adiga aayaadka ilaahay dad afrika nolol ka jooga garashadoodii noqoto inay gabar dilaan ee garasho yar haddaad leedahay faataxada ha la ii maro inuu reerkaa rogmo waxa thumbs up kuu saarayana faataxa ayaga naftirkooda in loo maro waa ilaahay inuu qalbigooda iyo islaamnimada usoo duwo. adigaana ugu horeeya waxaa duubaya qof yahay oolaadaa leedahay ayaga halaaga aa la rabtid intaad ayaga ku maqantahay ilaahay aduu kugu soo maqanya aan ku xasuusiyi saake ani adaan rajo kaale ee kuwa afrika jooga waxay samayn lahaayeen fidnaday samayn lahaayeen ilaahay wuu halligo ceebtooda banaanku soo dhiga wax dambe u dhiman. ilaahay xisaabtiisa waa adigana laguma diran. furaha naartana ma haysiin furaha jannadana ma haysiin. soomaali maxamedey diinta sida ah idinka ka dhigtaan mase siduu ilaahay yiri waa haddaad dhega leedihiin maqal ma jira. wanaagan ka hadlaya aniga ay halkan qaad habartii igu soo dira markeeda ha iisoo fariisato ha layga macaasho ani hal xaba ku sheega xaqa igu imow aniga
habrihiinna iyo odayaashiina maalayacniga ah ee lockdown lifeka kaga jira ee dibadda jooga ee rasaqa say ku keeni lahaayeenba keenayo su-aal aakhirada taala markii laydin dhaho su-aal sahlan ma aha. ninkii yaambada la siiye waa maqasheen wixii ku dhaca. ninkii risaq yaamba ka qabe su-aalaadkii la weydiiyey ninkii godka ka dabagalay sheekadaa waa maqasheen. haddaydan maqleenna soo xansada. yaa rabbi yaa rasuulullaahi ilaahayo nimca iyo kheyraana gelisa. ilaahay horta ani nafteeda markaa ka hadlo waa soo nabad kacay. ilaahay oolaadeedana weli waa ii noolyihiin. ilaahayo walaalahay iyo waxay dhaleen waa noolyihiin. ilaahayo intii soo raacdana rabbiyo intaa iyo inta kale nimca iyo kheyra dadka loogu duceeya faataxa looma maro. faataxada ii mara ilaahay inuu reerkaa rogo. Are you crazy? Are you really losing it? saan ma barisaq ku raadine. reer afrika joogo rogidda u dhiman xaytaa kenya kasii joogaan. kariimka kacbada moose saaka kukuya ag taallaa. do you really think reerka inay nabad kukuyadii af soomaaliga la baro ilmihii soomaalida dhaleen oo la nasabiyada thanks to annaga cararka aan waddankeena kasoo cararnay ilaahay aan ka fogaano oo aan been ka sheegnay annagoo wada degan oo wada xoolo loo wada beero leh baan xeryo soo fariisanaa waxaan dhahnay ahey waa laysoo bursaday. qaara nasabiyadooda nasabaan ahayn isku dhiiba. ilaahay inta ka gelay yowmidiin magacaaga aan ahayna subax walba ku xajisa. ilaahay inta ka gelaysiin taa kama idaan fakerina. hadda waxaabad gaarteenba fidna afrika ka dhacda faataxaha loo maro. والله بالله فاتحة سوماليا كو أخرس أديغن فاتحة وحوا أكتا سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم يا عظيم دبعتو مركي دعدو odayga abgaal wuxuu yiraahdaa dib marka uu dhaco u dhaca lama dhaheesaa looga dhaantaha la yiraahdaa faataxada la aqriyaa waa mid manaafacaad leh. faataxada la aqriyahay ma aha mid mulki iyo ilmaheedii iyo waxaan ku dhahay xaafadii yaqshid iyo lagu rogaay ma aha. bilaa calaykum ilaahay ka cabsada. bilaa calaykum waxa waa ilaahay idinku dhaariyo waa basically carabiga. ilaahay idinku dhaariyay Soomaali maxamedin dad waaweyn oo wax dhalaya tii youtuberka. haddaa yar tahay oo ilmahaaga ku yar yihiin iyo haddaad weyn tahay ee ilmahaaga waaweyn yihiin. I don't give a shit and I really literally mean it. What I don't want you to do is habare iyo odayo youtuberka ahaayo lately I don't know gaajada ma idinka badatay sheekadii ma idinka dhamaatay xanti ma idinku yaraatay habari faataxa la maro ilaahay inuu reerka rogo faataxa la imaro. reerka aad rogaysid waa dad Soomaaliya gaajaysan Afrika ka jooga nolol. reerka aad rogaysid waa reer gabadhoodii la bahdilay iyo meesha risaq ka xirayeen ka keenayeen laga xiray. acmaal shaydaan anu shaqo kuma lihi ashii shayaana yeeshii shayn tii soo dirta ma ii kii dirana ma ii either way I'm good. sariirtana ka fadhiya Australia wax la ii dirsaday iyo waxaan la ii dirsan waa kala aqaanaan qof weyn idinku waa la igu sheegteen laakiin aniga ogayna meher qabo meher dadkiina sharafta la helaaman ka dhaadheer loo hal wax oo idin faa'iideeyo sheeg rabbi iyo rasuul malaa'ika waa garbiina wax saaran. rabbi iyo rasuul meeladan ku inkiri karin. maalin waxa imaanaysa hadalka aadan karin siniin waminiin sariirta lagugu haynayo dambiga ilaahay ka rida haddaan nasiib leedahay. haddii kalena saaka intaa baxda aadan soo noqon either way we all good. maalinkeena maalin noolaguma daray saacadana saacad noolaguma daray laakiin midda aanan yeelayna waxay tahay faataxada hala ii aqriyo aad soo qortay kaasad ka risqaysa oo gaalkii lacagtii bilanimadii iyo qaysiirkii iyo qamradii laga keenay aad ka macaashaysa aad cunaysa markaasaad habaar iyo faataxo ku daraysa. waxaa maraysiin waxaan ku dhahay heer sare maba ahanba wallaahi billah. 5 سما محل 7 سماوات و7 سما jirtaa la yiri sida la sheegay. bahashi waxa maraysiin caadka inta dhaafteen ba erki gaari la idin. dhinaca kale marka uu soo qaado haddana saaka waxa haddana la soo kacay cunug yar ee meelaha beebeebay ba qamarka dhargay marka
markaasuu wuxuu doono ku hadlay naagti macnaha waa la mascadana laga haysaa 20 jir markaan ahaa maxaan sameynaa yaa xamaraan joogay I was about to go Sacuudiga Sacuudigaan suganay qaahiraan ka imaaday by that time waa soo noqday but the point it's not that the point is 20 jir aqli u dhiman ma laha halkan wuxuu ku socdaa wiilka aan adduunka ugu jeclahay shiina colay I just love him ilaahay wejigiisaan wiilkaas waxaan ku jeclaaday waa nahaab aw kombe oo cad oo jiinis jaxjaxan wata wa alla ninka been badana ninka waa dama jarteen ku leh ya habar gidre idinka baa laydin tuhmaya hadda wiilka habar gidre abgal buu sheegtay hadda wiilkiina saarsada ku leh haddaba ogaada waa majarteen we knew that before adiga intaadan noo sheegin aan markuu qaladka sameeyo hadduu majarteen noqonayo oo salaantii markii la joogan habar gidri abgaal uu noqonayo asayba u dhacatay wiilkaasi maxaa adiga hadda intaad soo fariisatay maxaa micnood soo kordhis oo aan ahayn inaad daaroodka u diidayso wiilka cajalada iyo waxa markaasuu cabay markaasuu isku shubay markaasuu waxaa la lahaa maxay ahayd wixii raashiyaanka wixii cabayeen vodka buu isku shubayo actic kanini buu ku darayo are you justifying all haram thing that he did you trying to make us understand inuu wiilki qamro cabay markaasuu kanini ku darsaday markaasuu majartaankii ka baxay markaasuu isaaqay sii maray markaasuu habar gidriga abgaala ay dhalayuu dhahay waxoo dhan wax inta meel loo soo fariisto thumbs up isan alla maxaa dhimatan war hadhahay warshada ma lahan miya jarmalka iyo I don't know wiilkan meeshuu joogana and I don't give a fuck war dadki inay shaqaystaan shaqadii aan naqaanay ee booyeysanimada ahayd mise landheernimada in la hantanto got you what do you mean no voice what do you mean what about now war heedah waxaan rabaa inaan idin weydiiyo rabbi iyo rasuul waxaan rabaa inaan idin weydiiyo shaqadii tooska loo aadi jiray maxaa ku dhacay oo aan han ahayn ilaan sharma boy qofna ma dhihin waxaa iga wakiila shiina cole ma dhihin oo kabtan ayuba iga mas-uul ma dhihin oo hebelow kale iga mas-uul ma dhihin waxaan saxan maaha qofka xumihiisi la wadwadee lasii sheego khamra diinta kuma jirto hadday vodka tahay iyo hadday beer tahay iyo hadday waraba tahay I don't give a fuck aniga waxay tahay balwad waa ama shiisha ha cabo ama sigaar ha cabo ama faanta ha cabo ama qaad ha cuno midda kalena qaladkii wuuba dhacayba why you guys are the stupid YouTubers rasaqa ilaahu meel waasaco xalaala noo geli yakhi wallahi all you need to do is asbaxna asbax almulku lillahi maqribki ducadan isbara اللهم نحن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بني آدم كوحو ده اللهم إني أسألك because دعاء أذيك كليغا waxa kaga qayr badan lagu yiri markay jamaacada yani maadaama carabiga aan ku hadlayo aniga waxaan gishtaa meeshan allahumma inni as'aluka dhila maadaama hadda idinka idin la joogo waxaan leeyahay allahumma nahnu nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan asbax al-mulku lillah rak'atayn salat subax marka tukatid iyo haduu ilaahay ku haleeshiyo tan ka horeysa shaydaanka deewa ilaahay ku hareer mariyo soo kacdid labada ragco salaada subax ka horeysa ka ajir badan lagu leeyahay salaada badanagan midna faro waa midna sunno waa marka always try to inay dukato tan waajibka hada sunnada ku darsanaysa aan kuma diidaye but I'm just telling you meel inaad ka bilowdo marka hore talaadaba iyada kooyaasoo yiri igaarkii raxan weyn marka waxa fiican wax fiican inaan iskugu nimaano wax fiican aan bay'adu u sheegno wax fiican ee wax laga faa'iideeyo ee qiimo leh laakiin ani markaad ii keento gabar la dilay ee dhinaceeda naaskeeda banaan yahay gabadhiyo madax xiiran markaad ii soo dhigto YouTuberow
adigu basharaad tahay ka bani aadam ma jeclaan lahayd gabadhaadoo madax xiiran in youtube-ka lasoo dhigo hadday maya tahay haa sheer garayne ka sheekee why do you have to show me horta why do I have to see why do I have to see gabar qaawan oo soomaali oo muslimada oo sunni ah maxaanan aniga ugu helinin youtuberka ah xataa taas xataa ma garatiin miya gabadha cawradeeda banaanka soo dhigaysan inaad mugdi ka saartaan ma garataan marka siday tahay gabadhaasa ninay la sheekaysanaysa waxay u dirta ayadoo shiisho cabaysa tii shiishada cabaysa waa qariseen cawradeeda iyo wejigeedii gabadhii wax dhibaataysay ayadii iyo reerkeedoo dhan wejigeedii waa u asturteen maasha allah tabaaraka allah caqligan sheegaade siduu u shaqeeyo dabadaba inay tahay inay horhoray tahay aanu ma garanin laakiin waxaad soo dhigaysaan banaanka gabadha dilan ee madaxeedii purple noqday timaha laga xiiray si loo arko dhaawaca madaxeedii gaaray this is what you guys doing right this is youtubero gabadha dilan cawradeeda waa banaanka tan shiishada cabaysana wejigeeda waa qarsan because maxay ku kala duwan yihiin ii sheega dhibka gabadhu ka yimid banaanka ay taallaa way dilan tahay tan kale maxaa loo qariyey haddaa feer tahay aan square waxaan ka hadlaa bani aadamnimadeedaan ka hadlaya hadde anu haddaan meesha joogo rabbi iyo rasuul ma qariyaan sababtoo ah gabadhan wax dulmisay banaankay taallaa way dilan tahay waa laysugu tegay tii shiishada dirtay waxaa la yidhi wejigeeda loo qariyey why because I just want to understand bani aadamnimaan rabaa anu gabadhaydii hadday dilan tahay banaanka taalle cawradeeda banaanka taal ayadii ay dhibki keentay tan la dhibaataynayo ayaa maanta dhib ka weyn gaarsiisay gabadha wax dirtay taa wejigeeda maxaa loo qarsadaa la yidhi rabbi iyo rasuul I don't understand like the conception oo idinka dadka xumaha dafidiya idinka hadda youtuber anaanu ma garaneen say wax u jiraan way gabadha shiishada cabaysa wejigeeda nooga qariseen because tan ayadoo dilanoo suucsane banaanka taallaa oo cawradeeda banaanka taalla adaana soo dhigay isla adigii le tahay maxaa u kala socatay tan dilan inay qaawinada ku fiican tahay ma naxariisa nooga raadinay are you fucking crazy like are you fucked up in the head nin muslimaa tahay waxaana ama naag muslimada saa sheeganaysa de aniga shaki iiga jiro because behavioralkaaga waxa aad ku shaqaysanaysaaba horta xaaraan qadcana subax kasta kuu sheegaa laakiin dhigaha iga xiran aday ku tasha I don't give a fuck ani meeshan waxba ha ii sheer garaynin waxba ha qaybsanin waxbana youtube-ka ha dhigan aday ku taallaa waxaa samaynaysa anlag waxa kuu sheegaya midda kaa maqane caqli xumo ah waxa caqli xumo ah falkiiba dhacayay adu maxaad u sii fidisay xumaha maxaa lacag uga sii raadisay maxaad u xalaalaysatay I just want to know ilaahay wejigiis وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته each and every one إسلامي أنا سلامتك كقادم I'm so sorry I'm just كركي جماشي لصار ديك كم إيمانية يوتيوب لي إرساقة يوسف محمد عبد الله أنا أبو what I don't understand is قرما حن لبني حن يا بني because each and everyone وحي شهدت دهان سمعت معه waxaa la soo geliyay baraha facebooka ah gabadha lagu bahdilayo alla ilaahay qalad ma samaysan nacam bilaahi 100% waraba ayada ku dhacay ilaahay jisadeeda banaanku soo dhigay kuwii dhigaya marka waxaa la yiri naag weyna soo gashay waxay taagantaa faataxada iyo mara reerka ilaahay inuu maqrib iyo maqshad u kala diro I'm fucking thinking war dadkan waa bashar gafay ilaahay bay waxay u haday istighfaarada was'ullaah wa saacada hadda aniga aan taaganahay qiyaamka waa everything that I do in a daytime hadda soo kaco ilaahay cafido ilaahay ma oranay taasa adiga marka aayaadka ilaahay meesha aad ka soo baratay meesha sad adigu iska dabooshay heblaay Soomaaliya maamo ma tihid because hooyaad leedahay faataxaha la igu maro ilaahay inuu gurigeedii rogo hadda rogmashada u dhiman maxay tahay wiilasheedii iyo islaantiiba caawo fadeexaday banaanka joogan adaa ka sheekeynayo fadeexada kale u dhiman maxay tahay I just want to understand Soomaalida inay rabbi iyo rasuul wallahi ubillahi ta'ala maalin kasta ereygaas waa soo qata inay yuhudnahay in kale sometimes I'm not so sure waxaan nahay sababtoo ah muslimna ahay qofaan dilaa muslimna ahay qofaan kufsada muslimna ahay dabaqan ka soo tuura muslimna ahay ciqaabteedii ma maro muslimna ahay qabiila lagu difaaca muslimna ahay qabiilan wax ku dhaca
muslimna ah meel inta soo fariistaan qof maanta oo dhan ijaafeysana markaasan supporter haysta. I just don't understand what kind of humanity are you guys. meesha aad ka timaadeen asaaskiinii hore meel iga dhig. hadda waxaa tahay aniga murug igu hayso iyo waxa aan ka tagayo waxay noqon doonaan kama fakaro idinkama fakaro already waaba idin arkaabo. salaamu calaykum ilmo xumaatiin firqooyinka aan raadinay one of them das far waa arkaa laba iyo saddex baad u kala bixi doonta alwahaabiya alhebelo alheblaayo aron care iyo alxumaata whatever the hell it is. laakiin the problemka waxa waaye war dadkan islaamka sheeganaya rajab iyo shacbaan iyo ramadaan islaamka aho oo facaafu cannada la wareegaya saddexda bilood bilaha kala qaan ma idinku tahay muslimnimada. taas waa su'aal. labo xumihiiba aragtay yaa ku yiri shargare maxaa ku qasbaa isha maxaa ku qabeexayo adi oolaad ma lihido adi reer ma lihido adiga faataxada maranayo maama soomaaliyey meel inta soo fariisatay dhahayo kuwa fiirsan doona faataxada ii mara. faataxada waxaa lagugu marayaa samaan. faataxada xumaan looma isticmaalo. what the hell is wrong with you. war dadkan horta yaa dugsiga macalinka qur-aanka yaa wax usoo dhiga dadkan hadday yar yihiin iyo hadday wen yihiinbo aayaadka ilaahay macalinka markuu idin akrinayay iyo markii hadda aweynaateen oo aad androida qabtaa iyo laba phone saa idin arkay de haye heblaayo ku soco groupka ilmo ku socda. listen waxaan rabaa ani kana iga badan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi haddaad aragtaan anoo teleefon labaad wato heedhahay waxaan ku dhahay intaa iisoo fariistaan each and everyone aniga faataxada ii mara. isn't it enough already in la idhahay naagaa tahay awraa tahay naagaa tahay maxaa lagu yiri is astur naagaa tahay waxaa lagu yiri ilaahay ka baq naagaa tahay. isn't it enough xadiidka ay ku jirto yaa rabbi astur cawrati wa rawcaat maxaa macnaheeda ilaahayo ceebtana ceeb muslim astur ma lagu dhihin ilaahayo faataxada mar kabacdi faataxada ilaahayo waxa haddana bal shaydaankaas ugu dhedheelaan ka yaaba ani kuwa أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت. I just don't know what's wrong with you guys. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت. والله وبالله أطلع شرط الجداي شرط الجودة وقت إلهي إذن قوس قال أفكني إيشين سماني حمام با. لكن بين إذن مش قال صومالية تضبط فرقة صومالية لقى أبو رايم وعد رسول عاو إن دمبابين الله بمدبو faataxaha la ii maro inuu reerka ilaahay rogo rogmashada u dhiman xeetaa idinkaa banaanka soo dhigay biimaal xasan yacquub ciddaas xaa u qarsan cawada wiilkooda iyo gabartooda gabar islaameed oo miskiin oo fanaanad xataa qoorta lagu soo suray heblahay codkeedii baa egtaa raxme rees heblahay rees waay I don't know raxme iyo rasmi iyo whatever la dhaho I don't care. problemka waxa waaye cadaad maqashay wallaahi codka raxme rees heblahay rees waay why would you do that maxaa tashwiishka iyo عذاب إيه عقابة سقط أنت معجزة سقط معجزة دي أنت تفاتح كأخرس الله دليل إله أبتدي عام مسلم أسترت الحمد لله أنت دليل وأديك بقى أنت مال سافر واحد كان جنا عسنا يسأل إلهي إنه رير كان رجع فاتحة إيه مرة هذا رير كان أهلا ما جعلنا إن فاتح الله قمر ولا بيصير رجع هذا رجع من already رجع مش ما أهرت عدس عوضة رجع مش هرن لا بجربه مركو هو رزقي يكونوا لي marka labaad caaw ceebtooda banaanka taala marka saddexaadna hadda Soomaaliya sugayso iyo meesha ka imaadeen Kenya asxaan uma hayso Soomaalida subaxa saaka asxaan uma hayso subaxa saaka aan joogno asxaan looma hayo marka hal reero dhan oo gabar isugu tagay adiga inta youtuber tahay inta dheer ilaahay islaaxa dhexdooda dhig faataxada iyo mar ilaahay inuu ceebtana qaboojiyo ceebtana astro noo duceysid لو بركارة صاقش الله هذا مركان كأركض وكان حيلاقي دين because of you هذا نمر لبعض صاقله شال الصبح عن كلاه اللي هي قفي أنا تاعي أو دتك وعد السوء واني السوء أديك يودتك وعدينا أو وانينا أو أنا جسدي وناجي كوكبرتون كوهايو لأن وابن كل شيء يا بعد فرت على مكلا لأن كم حمانية وأنا أوجا والله صدقنا هذا بعد يداوني إن أنا كم أقان right the problem is maxaa wax ku xallin kartaa oo wanaaga problemka ma aha inaad faataxa intaad marto aad tiraahdo reerkii hal rog waa rogmadeen already banaanka yaalan youtube-ka dhex jira thanks to you adigoo kale oo miiran sheekh iyo shariif wada sheegana
And I just like how they, when they come and they beg in that stupid gambalel and subscribe, how pathetic and yeah, pathetic la iskaga dhaaf. There's nothing else to say. Pathetic waay. Qof tuugsanayo waay youtuberka. Basically waxaad baryaysaa inuu qof kuu taabto gambaleelka. Why? ma shaqaysatid waxaan qansiirka iyo khamriga iyo fisqiga laga keenayo intaad quudan lahayd ma shaqaysatid oo xalaal shaqaysatid oo kacdi. Why don't you do that haddaadan jiranayn, haddayna jiro kaa reebaynin oo macduur ka ahayn shaqada? Why don't you do that? Like, why can't you not be a human being decent? How hard it is to be just a kind human being. War dadka haddaadan waxba ku kordhinayn faataxaha ugu marin in la rogo waa qalad, waa xaaraan, waa mamnuuc, waa maqdac. Ya rabbi ya rasuulullahi, you cannot just read faataxo. Oh, you know, aniga waxay caysay libin dhoofi baa caysay. Ya ha marka maadaama libin doofil ee caysay marka aniga faataxadaba umar. No, it doesn't work like that. faataxada khayrka la sugu maraa, faataxada tanaasulka la sugu maraa, faataxada ilaahay in horta. Did you even know meaning ka faataxada? Did anybody google it to Somali language? faataxada ma ku jirto, hal isku habaaro ma ku jirto. lacala haddaa rabta hadda kadib inaad dadku ku habaartid, please don't do that. war ilaahay xumaan ma lahana lagu yiri, waa lagu sheegay 1,000 times. sheekh umala kuu sheegay, mufti mankiya kuu sheegay, magaciisa kale kuu sheegay, kan kale idris whatever qarraf qajajac qababax ay sheekh adiga oo preferentialkaaga ah baa kuu sheegay, cabdibaasida kuu sheegay, oo maxamed jibriila kuu sheegay, oo kana century and century. faataxo wanaag, faataxo duco, faataxo laba qof oo isguursanaysa, faataxo tacasida, faataxo aniga markaan jirana, faataxo markaan muraad leeyahay, faataxo. You don't read faataxo because waxaa rabaa mulki iyo carruurteeda inay rogmadaan ceebtooda ja already youtube ka taala. Isn't it enough already inuu reerka ceebaysan yahay, wiilkoodii gabadhoodii hooyadii oo ka celinaysa, gabdhihii ka celinaya leeyahay hooy daha la dile, markaasay habartii garan weydi inay tiraan ayaa kada gabadhii way dhimatay. ma heedha rogmashada kale u dhiman islaanta xaytaa subax saaka animay wallahi bilaa I don't understand ereyga rogmashada u dhiman duqdaas xaytaa. adooga abukar oo allah u naxariiste ar soomaalida xaasisana, alla soomaalida xaasisana, alla ilaahay soomaaliha ii jibin, rabbi raxmaanka ma baadan ii jibin, ilaahay kuwan ishoodii afkooda iga du, ilaahay kuwan ishoodii afkooda iga du, alla kuwan ilaahay ma ka cabsadaan, alla maxay dadaboolan yihiin, alla maxay aayaadka ilaahay xifdiyaan, misana ku acmaal falin. time wallkooda waxaa arkaysa imisa 6,000 plus ah iga blocksan, each and every one. umu hebelow maxaan ku dhahaa sheekh hebelow ina sheekh aa wada dhaldhalay anyad maaqana sheekhnimada meela ka martay. subxaana malika alquduus, subxaana malika alquduus. faataxa laysku habaaraya imaata subaxa saaka maxaa layska qaada 2021 waa dadka erkay tagooyaan ku dhahay mars iyo maarsayaalo waxaa la keenayaa daawadiina looga daaweyn lahaa corona. maxaan ku dhahaa horumarka la gaaro kaala arag. ani adiga waxaan marownaa faataxa la soo maro. one would think qofkan safar u socdaa musaafir waaye ilaahay inuu u fududeeyo jidkii iyo jiscinkii. faataxa saaka in la rogmadaha loo aqri acuudu bikalimaati llahi taamaat, acuudu bikalimaati llahi taamaat min sharri ma khalaqt, acuudu bikalimaati llahi taamaat min sharri ma acuudu bikalimaati llahi taamaat min sharri ma khalaqt. Are you crazy? Are you crazy? faataxa maxaa u maraysa inuu rogmashada u dhiman maxaa waaye adaa youtube ka soo gelisa gabartii iyo reerkii iyo dadkii oo tumaayo finito waa dhamaatay ceebtooda ilaahay banaanka hadii soo dhigay. waxa waaye maanta kabacdi ii kan istakfirlah ay leeyihiin. adiga iyo ayaga ilaahay waa u simana, maamada habaaramaysa iyo aniga iyo ayaga falka sameeyey iyo tii samaysay iyo it's none of my business. aan taagana ana subax saaka I don't care what happened, how it happened, it's none of my business. janna ma lihi, naar ma lihi, maxaa ku dhahay sheeg cafis ma lihi, malaa'ig ma ihi. it's none of my business, nor it shouldn't yours, let alone you calling. faataxaha la akhri aan hadda adiga ahay kolba ima maqlaysida 12,000 baa ku daawatay lacagtaada ba caddaysanaysaa. ani waxaa ku dhihi lahaa maama soomaaliya ayaantan ziyaado ba tahay, you better be calming down. mara naago fiiriya waxaa tiri shalay markaan hadlaya waxaan ku dhahay
maam Soomaaliya adoo caytama aan weligay ku arkin adoo wax waanina alla ilaahay waa ku arkay adoo farmaajo ku asha wax ku arkay oo yuhuud sheegatay none of my business bani aadan carooday tahay intaas wax ma ka soo qaada because wanaagaagii ugu badan laakiin lately ziyaada tahay waxa ziyaado u tahay saaka waxa maraysa faataxada ii mara inuu reerka ilaahay rogo are you crazy marka waxa soo qoraysi sharma boy qamar sabe agarid wuxuu sameeyay sharma qeyl oo haya sharma waxaan qeyl uga haya diinta islaamka ba ku sheegayso qofka haduu mandaysan yahay oo caawa idilo inaan asaga diyo loo haysan sababtoo ah maskaxdiisa ma deganeen uu doorsama ma la ogol yahay in qof dilo maya ma dhici karta inay dhacdaha why because balwada qofka maskaxdiisa rogaysa ani adiga qamar kuguma ogida ani saaka adiga qeyl kuma hayo ani adiga waxaan kaala yaabanahay faataxada hal ii soo maro af Soomaali ku soo qortay inuu ka soo dibadda ku dhashay wuxuu markuu arkan waa shahaadanaya wuxuu ka shahaadanaya wuxuu og yahay ilmaha dibadda jooga been ma yaqaan ilmaha horta faa'iidada aan helnay ilmaha dibadda jooga garashadooda ma sha Allah tabarakallah been hooyada waxa waaye runta la sugu imaan alla ilaahay af adeeg ma laga arki doonaa nacam raali ma ku noqon doontiin waalidka yes why because nolosha sida aan hadda la soo galay waagi xirbanka iyo babiska la isku tumi jiro waa laga soo baxay runta la isku dhaqay marka adiga hadaa waalid tahay waalido ma waxa lagugu imaada exemplary actionable fact mise waxa lagugu imaanaya hadii ay idinkeed leeyahay inaad faataxada aad u isticmaali karto in reer ilaahay rogo are you crazy maxaa ka soo galay rogmashada hadda aan reerkan u hara anu ma bagaaranin ba adiga ala siirtid ayaga anigi ayagiyo ka naxay iyo falka ay sameeyeen iyo gabadhii oo xiiran oo banaanka taalo cunaa ay kala go'an yahay waa adiga waxa taagan tahay faataxa la ii aqri aniga faataxada adiga aan ku aqrina ma baxume xagee faataxada soo wada habaarka shacni khayr jecelay been kuma sheegayo habaarka haduu meel waayo waxa lagu yiri albaabku ku fadhiya guriga ku soo noqonay the sad part of this life is you cannot ill will for shacni khayr jecel because khalada ka dhacay khaladku uu ka dhaca bashar waa shaydaana wehliya the reason we pray 5 times a day it is inaan ka istighfaareysano every dambi on galno bayna salaadaha inta u dhaxeeya bayna it is in between salaadaha inta u dhaxeeya subaxa tukatay ilaa duhurkii 20 dambiya galaysa duhurkii istighfaaranaysa casirka la gaaraya 15 galaysa maqribkii la gaaraya 10 galaysa baayata ma aysha gasho bitiga ay baalsha la qabta qiyaamka disoo ka aad si fiican tahay hadii soo kici weys mooy aad ku shuuran this is your life you do what you will ba ilaahay xumaan shaqo kuma laha min bidaaya lagu sheegay so you cannot use his fataha for you to rock Islamic already rogan oo Africa joog nolol Africa ka jooga risqi ee cuni lahaayeen cariir laga geliyo halaha soo rafaad u mareen bal arag ceeb habar ogolaatay inay gabdhaheeda sheeshaystaan lacagta oo gabadheeda boyfriendkeeda oo dibadda oo ka soo dhididayo oo u soo dirayo guuru ka rabaan gabadha inna lillahi maam Soomaaliya aniga walaashay maam milyan waa jeclahay laba mid buu ku jeclahay emotional waaye she goes with her heart ani milyan awuran fault awuran compared to maam Soomaali there is no way comparison ma badax mari karto labadana naagta naag degan ahaan jirtay leeyni wax wala anu ma garan karo iyo wax dhibaatada ayada hadda haysato ma bahashanay badsatay xaraantii ka dhiragtay soo baxbaxayso ma ogi علمك I don't know لكن أنا محاساك هذا والله وبلا أطلع it was never my intention إن أنت صاقله but when I saw her writing in of Somali saying that فتحها الإمر إلهي رير تهرب أنا حتى أجنها baby girl they already were up مدين أنا أحد جبت أكون جرت ملاكا قال لي قال لي مجيس صرت ميدي بلا يقرر فجع وبع عشان كني ماشى وذا الوريجي نحب لماذا الوريجي في Somali جن إيجا بدي each and every one بقى إلهي قرت إذن سوري يوم القيامة أقول تجيسين إلهي because وحكى هذا الشيء صباح والبا وحيدا شهدت بهم إذا أركن
samictuna dhihin waad ka hadashaan basically af Soomaaliga waa xan waxaadan adiga u joogin oo aad ka sheekaynayso waa xan xanna risaq ma noqdo. This is what you do, my darling YouTuber. I don't care. You call me whatever name that you see fit. Yay! I'm happy with it. My point is, opinion kega so xiray. Whatever adiga ay dhahdid, I know aniga. Insanity hadduu jiro ani immigration ka shaqeynay. Insanity hadduu jiro tarjumaad la iima dhiibin. Insanity hadduu jiro warshad robot ka shaqeynay kama soo shaqeeyeen. Insanity hadduu jiro xafiis shaqo kama soo shaqeeyeen dadka shaqo geyso. Insanity hadduu jiro yaar masquul ma soo dhaqeen that's historygayga Australia aan la joogo. marka adiga waxa rabtida ay dhihi kartaa aragtidaada xor baa u tahay kama hor istaagayo. Reality is different. runtu way ka duwan tahay markaad adigu igu tiraahdo subax walba gabadha Australianku way waalan tahay ala naftaada ku samarsiinaya. You know inaan kaa fiicana kaa cilmi badana kaa aqli badanahay kaa miisaan badanahay marka taa ma qaadi kartid waxaa jeceshahay aniga inaad dhiiqa xaarka lo'da lugaha ii gelgeliso saacadahaas yarka aad dadku anfacayaan. You do your job. But what I will tell you is the truth, nothing but the truth. And I need nothing from you. No subscribe, no thumbs up, no nothing. And don't share it, please. Please. I will not go there. How many thousand people told me afkaarad bata aftahanad bata batata sababta aan ilaahay qalad aan ogahay anoo cilmigiina carabigina aqaano quraankiina fasiran kara sababta aan u aadayo meel aniga aan ogahay risqa meesha ay ka imaanayso ay tahay qansiir iyo qamaar laba isfuusha lacagta laga soo qaado baa yuhuud isiinaya ugu beelaya muslimnimadii xagee tagaysa waalidkii xaj kama geyn karo anigii kama xajin karo inaan cuno waa laga xarima shaqaysa lagu yiri macduub ka tahay dama jirada ilaha keenada ay mala jirada. It is what it is. Do inta hadda iska tahay ya lugaha maala ugu jiro oo waalan tahay waa ilaahayga idinka iikiin wala alxamdulillah shukr aakhir hadan tagaaniga jannadan shaqo xadaha macakobay hadan walna allah watch it is what it is marka ma milyan way habar badan tahay waan arkay. I will not fault her for two things. She is a rape victim. Always waxay ku jirtaa PTSD wax la dhaho post traumatic disorder. PTSD stands for post traumatic disorder. Ma milyan victim of waxa waa rape. So qofka markuu victim of rape yahay every dhibaato oo dhacdo shucuurtay kicinaysa post or you guys can translate in the language wadanka aad joogtid post traumatic disorder waxaa la dhahaa intuuna dhibka kugu dhicin disorder. Yeah, somebody google for me disorder please. shacni khair jecel hal mar hooy macaan inta ka baxdid disorder af Soomaali ku tarjum. I don't know af Soomaali waxa lagu dhaho post traumatic disorder. It is anigoo kale waxaan soo joogay dagaaladii meesha ku dhacayeen saa idin sheegay lugayga dhexdooda xabado lagu furay agteeda dad ku dhintay waxyaabaha dadka soo arka they have trauma waxay haystaan memory image oo aan weligood qalbigooda ka bixinin. That's trauma marka traumadii I'm trying in idin minceeyo traumada post marka waa before that shit happens anyway disorder I don't know what you're saying Somali but it is what it is. habaarkii uuba ka noqday codkii baa go'ay codkii go'ay ma aha xabeebta horta koow way u dhalatay aan labo way qaylisaa marka qofka markuu hurdada ku yar yahay habeenkii haduuna saani u seexanin nin iyo naagba scientifically codka wuu go'aya because brainkaaga wuxuu register gareynayaa inaad habeen walba seexatid subaxii soo kacdid sidoo ilaahay rajaynayo. ahlu salaad they do that and then waa ku noqonayaan then they recuperate hurdada intii habeenkii ay salaadii ay usoo jeedeen ama qiyaam ha kacaano ama salaad subax ha usoo kacaano ama ha israacsan dadka badanaa dadka qiyaamku sida u tukanaan waxa waaye waa salaad subax ka hor marka salaad subax ka hor ay soo kacayaan qiyaamkii iyo sunnooyinkoodii iyo waxoodii tukanayaan ka bacdi salaad subax ay ku xijinayaan
raalli ahaada. So as I was saying, adkii baa ka go-ay kule ma ahan hooyo fiiri shacniye dadka subaxii dadka habeenkii shaqeeyo indhahooda fiiri indhaha hoos maaragtay indhaha markino marka lagu dhahayo alla dhiigaa ku yar everywhere indhaha hoostooda haare ku samaysmaa nimanka oo tagsiilayaasha fiiriya habeenkii oo dhan shaqeeya ama tareel wado habeen oo dhan dadka soo jeedo aragooda muuqooda wejigooda wuu ka duwan yahay dadka habeenkii jiifta because ilaahayba wuxuu ugu talagalay ninka inuu naagtiisii ilmihiisii gurigiisii ku dhex jiro maqrib banaanka markuu kusoo dukado cishaha cishaha masaajidka kusoo dukado cishaha he has to come home and see gabadhii ilmihii everything but we don't do soomaalida maqrib aan baxaa macaanta bacda alcisha imaana waa meelahaasaa lagu soo sheekaysanaa farmaajo yaa ka warramay iyo baacidan dheer yaa ka warramay iyo all the same bullshit they do everywhere we have the same character it doesn't matter dare waqooyi tahay iyo dare puntland tahay iyo dare calyaala tahay dare baydhabo tahay we do the same things because this is dhaqankii caadadii waa soomaalidana waxay badana ay ku mahmaadaa war ku nool waay hay maxaa la soo sheeg maantaasoo dhan waxaa raadinaysaa waxaan ugu dirsan I don't know why you guys do that but then again it is what it is waxay tahay hay maxaa isku dhacay maxaa isku qabtay maxaa isku soo none of your business anyway but then again you still look for it I don't know why you do that but then you do awowaa sameynayo wiilkii sameynayo anigii sameynayo naagtii sameynayso ilmiyaa sameynayo this is soo jiritaan waay safarkii muxuu soo sheegay waxaan ka hadlayaa good old days siday ahaan jirtay de maxaa hebel laga soo sheegay maxaa hebelow soo sheegay marka duqdan aniga maanta caawa waxa iga yaabiyey oo maskaxdeeda ay ka weynaatay waxay tahay faataxada ii soo mara ilaahay reerka kenyaatiga inuu soomaaliya kenya ku noolay gabadhi dileen ilaahay inuu rogo marka hadday ayada hadda caawa ay niyirsato ama salaad tukato ay realize garayso faataxada macnaheeda shibara bidalidida shidda meesha ay habaarka dadka ay u farayso ay leedahay faataxa igu mara iyo waxaaba iiga daranba ani ayadiiba qaladantay kuwa thumbs up u saaray ani hadda ayaga ah suulka hoos u saari la why faataxa looma isticmaalo maxaa ku dhahay halaag iyo habaar what the hell is wrong with you faataxa waxay waxa lagu yiriba afar faataxo naf go'day afar faataxa laga qaatay anigoo dhintay oo casualty cunug yar idilay oo 15 jir 16 jir xabad iiga fakatay reerkayga ma ahan inay magdhow weydiiso hadday iimaan leeyihiin qofku uu weydiisan karaa magdhow yes diinta way ogashahay laakiin waxa ka fiican inaad ilaahay u aqooto sallallahu baarak calee waxay noqon lahayd ba noqot maalintaas ma dhaafi lahayn regardless inuu qofka laakiin iimaankaas inuu ku jiro soo kama horeyso habar ruqiy cilmiya waa ku salaamo habar macaan waa ku salaamay ina eedo waa ku salaamay I call you habar yar anu og inaa qaraabanahay yeah so we always haddaa rabtid inaa adiga khayr heshid you have to be reasonable inaa noqotid qof macquul inaa noqotid maamo soomaaliya sheegatay magacaa wadatid fiiri anyad waxaa meesha kusoo qortay youtube-ka faataxaha la ii maro ilaahay inuu reerkaas roogo ayuu crazy marka war ani maa malyan ma xisaabinayo wallaahi oo billahi oo tallahi si daacada u jeclahay gabadha si niyada u jeclahay because ayada qalbigeeda wuxuu ku jiro she is wearing her maxaan ku dhahay emotion in her sleeve and I give her a credit she is a victim of a rape could she done better yes but did she do no it's none of my problem marka ani problemkayga ma aha because of that maama soomaali ayada isku meel habeenna ma gelayaan maalinna ma gelayaan because maama soomaali markay meesha soo timid waxay kusoo fariisatay wanaag maama soomaaliya leedahay okay maamadii soomaaliga haddaad tahay maxaa la habaaramaysaa ii sheeg what excuse do you have for you to ask us that we read faataxo ina reer already waa rogmadeen youtube-ka ku dhex jira rogmashada kale adiga aad la rabto ma dhulka ilaahay inuu kala baneeyay dhex galaan sidii ida zulzulatil ardi zulzaalaha rogmashada kale u dhiman xay tahay cidan habartii wiilashii gabdhihii hal gabaray wada dilan habaarka kale u dhiman subaxa saaka oo cidaas aad la dooran karto ilaahay baa idinku dhaariyay intiina i daawanaysay inta dambe oo daawan doonta habaarka reerka u dhiman maxay tahay
gabadhii ay dileena kooma ku jirto madaxii laga xiray dhaawaceedii si loo eego baraha facebook ee taalaa gabadhiina way qaawan tahay falkan ayadu ka yimid ani ma jecli dadka oo ma ihi maxaan ku dhahdaye qofka qaladka sameeyo sida shiina colay ma ihi oo hadda ninka ogaada hadda wax ma jaartaano habarkidri abgaala wiilkiini way iska wata waxa aanu ma cuno qofka qalad sameeyay qaladuu sameeyay wiilkayga ha ahaado nafteyda ha ahaato I'm coming here and I'm responsible of my own qalad right this is what it is life accountable you must be accountable of your own action but I would not justify I ain't got no justification why I got guys get over it هذا إذا قالت رال الحمد هذا ديدنا والشكر لله رب العالمين it is what it is عفس كانت إلهها بالحيل أخيرا أهم شيء إيه إن أنا كده هاي سفر استرال أو كده مديد على الله it is what it is وهيتا هيتا وح ولا صدق وهي أفرع الدنيا آخر شيء نيسو وحنا بكول منه كل شيء يعني كم دول منه كم أنا رات سنة ما أنت هذا نمسو إيجاي لكن مالك أيت ما دمير تدان كورابنا ما أنا كهراي sababta amarka hore bay soo doono kuma dhin qof weyn baa tahay halkaas aad iigu imaanaysaa waa khataata khamis waa ma tagaysaa what for marka habartaa habaaramaysa iyo wiilkaa khamrada cabbe kan khamrada cabbe caytamay qof kastoo islaana wuu garan karaa fadeexada waxaa ka daran asaga caayada uu sameeyey waxaa ka daran caawa inay ummadda nebi maxamed oo dhan og tahay yarka inuu khamro cabbay uu kaniinina qaato imagine that adii marka ninkii dhamaa ee aad subax walba heestiisii gadanaysay aad dhegaysanaysay ee caawa lagu yiri qamriga cabba Soomaaliyan nahanay dadka waxaan raba inaa faataxa inta akhrisad reer rogtid already rogmaday rogmashada kale oo u harsan xay tahay cidaas subaxa saakan ku dhahay wiilkoodii iyo gabadhooda cida waa ceebeysan yihiin kuukuya hoos fadhiya ya kuukuya ilaahay magantoodii ka dhiga because أنا أقانا صومالي ويدعوينا اسمه دول قادرنا اسمه تنازلنا فاتحد اللي سوق تنازل لها أما أنت واحد اللي أنا أخرسنا غيرك إلهي إنه الرجل كي إنه كجوجان كوكويا أسفديا سكومي عنوان عد سكومي عنوان سوا واحد لا ذا معك ده إلهي إنه الرجل جني ما قبض هذه بقضية لأن ناجر متى العودة قف إجير هداته ما عنده فتقدر ولا قلها I know إني إذا لحظة سنة شيئين but we know each other بلين دفور في كتالة right أنا إلهي إجرسي لحظة صومالي محمدي خمر عنق عبا عيتمي إيه خبر مير كذا جوستي هبار رميسو تضبعتن إلى بعض فرقات لبا أدونك اللي كنا تضبعتن فرقة صومالية دحتالة Somali waa dadka qabiil dambiga isaga qaada shiina colayo kala joogo ku dhahay hadda ninka waa majarteen ogaada habargidreed ninka waa ladin ku tafmahaya ya hadda wiilkiina iska haysta sharma boy wuxuu yahay fanaan caana waay cidna kama baryaayo dhalasho iyo nasabiyad asagoo alaalax wuxuu dhahayna qofka u qaadada asaga qof wiilka raadsanaya ah qofka markuu fiyoyaha lala dilgaraya qof cabsanays asagoo sakraansan hadal uu dhahay u malayn maayo Soomaalida inay saa u sii xun tahay oo ay cadaabayso ee takoorayso waxaan fal la rabo waaye lala doonto waaye shirqool waaye qof kasta garan karo dibadda iyo dalka jooga iriis cunug yar waa laakiin islaantan weyn oo faataxa la akhriyo reerka ilaahay inuu rogo reer rogmaday already ku jira YouTube-ka iyagoo dad tumaaya rogmashada kale u dhiman oo faataxa kale ah ula raadinaysa aanu ma garanin ilaahayna ima garansiyo faataxa xumaan looma isticmaalo muhiimadeeda aan u soo galay intaas waa maamo salaa ala kugu taalo wax ugu badan aan samaysid waxa waa adoo reaction runteeda aad ka samayso ajirkeeda waa qorantaani la bas aday ku taala habaarka iyo faataxada looma aqriyo inaa maxaa ku dhahay isha habar ruqiyo cilmi ina dhahdid ilaahay gurigeeda ha rogo gurigaadu ilaahay rogaya xaasnimadu kugu jirto ilaahay laba wuxuu yiri ilaahay yaan la gargaarin doqon iyo xaasid marka always xaasidka arkayso waa doqon sababta ah ma garto waxaan ilaahay ka timid haduuba garan kara marka horeba kuma xisdaa
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Until we meet each other, you guys are أنسى إذن شيء والله وبالله أطلع عاوين الدم بيجد إن مركع إذن به تضبعتني لبا فرقة أدونك كإيمانسا تضبعتن فرقة صومالية لقى أبو راي صومالي جوانينك كوي فاتح إيمر يوتيوب كا إلهي إنه غير كاس رجعان ربا فاتح إيمر حرام قطع مقطع واي الرزق كقادة أي عنده وكسي هلاك مسا أنا كمان صومالي وحن إيه لا عجلة صورن قبتها كذي قفك مركا وانين يسد وناقة لقوانية إلهي يو كان يال هبلاي إلهي يو كاس يال إيه وحاس أديك إلهي وحو يلها أديك على متى شنها كنتم كونوا السنة أديك أنت أنا لو أبورن كهر ومجا على ملك قرى إلهي ومال صار ده آيات إلهي دقي ستين إرادة هذا وقرنتها واحد نقلنا هنا والنقلني أدي لكن ما مسومالي الشيء مرضى كان عضي فاتحها اللي إيه أخريو إلهي ريركاس إنه الرجوع ساك شاه ما عبن شاه يجنوا عبي كرت شيدان وكسو أجمري أنا بكل شيء أنا بكرك على كنت كل شيء ماما هذا ماما تها وسومالي تها ضدك وناجا لو جبرت أنا جالس كلها الله يا كدا وينجري أنا I'm sick of you since يهود أشياء بن كل شيء جاي ولقي الله وحن كوه يستي ومن ده النبي محمد إسكا ريحان مركنا لبننا مريحانا لما يهود أنا هاي لو كنا لدوق الصبح بكارها يهود ماذا النقنن معقلدا لبني سومالي لبكون أتر بكارو دنا كودا مع هوتيل مع everything 2000 ريال القلية إلى يوم هذا إما قيين يا دنتيانول إلهي أوجه يهود صبح اسمه هذا النقل لبننا مريحان لبحن أرنو وعلقوا عن كودا إلهي صوها بارك لو يهود أنا فدنا إنك بالله وضم الدم بالله عليك مام سومال أيانتن زائدة شو نقول نسا عنده ويتن نايا عينيس أو حلا أبي يجري معك رضايا ما نو أباها ما إيش أصار دورت هذه ما على مسؤول كتا إيه نفط هذا that's it احسب نفسك من غير ما تحسب حد غيرك هذا نقفك لحساب إن نفط هذا حساب بالله عليك شو هذا وين بطا إله وين واحد حساب نفط هذا زمزم ضيح إنك لا دولك كوجيدسا أخلاق ذي أولاد ذي حياة ذي كشة كنسا مركز الله هذا مام سومالي how are you مام سومالي you supposed to be قفك وناق اللوجو إما هذا حديث كلوجو إما هذا قرآن كلوجو إما هذا مجد إسلام تسمع كده هذا إسكري قفيه ما عند الله فربا هدو بحي هدو جو أباها أنا مدلن هويدا أنا مدلن قبل مريحان ريدين ريد الممثل محمد عبد الله فرما هدو حما هذا أسجن نفتي سوي فيها runta idin sheega Soomaalida runta ma jecelidin maxamed cabdullaahi farmaajo haduu xumaado marixaan shaqo kuma lahan shakhsiyan u xun yahay shakhsiyan naftiisu u xun yahay xaasidnimada iyo wuxuu ugu talagal uu rabo inuu sameeyo Soomaali maxamed uu idinku sameeyay reediini iraada loo dhan intay u reestaan ma dhalin maxamed cabdullaahi farmaajo guys buda iyo biyaha loo kala baxayaa waadan qanaa idinka marixaan no marixaan waxa ku jiro lafta geela badha ku jiro oo celiya ku jiro oo waxa soo dhan maxay dambiyo leeyihiin wagardhay inta kale soo hartay reer Axmed iyo reer Waraba guys calm down your horses tartiib sidoo abgaal nin xun ugu jiro finish oo kale wabar gidrana qorqor ugu jiro ayuu reedin reedalna ay qabaan ree oo xasan oo dhan shaqo kuma laha Fahad Yaasin asaga naftiisu u doortay inuu xaraami noqdo soo ooladii bensiinkaas ku qasina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.